ilmahani wuxuu yidhi haddii qur'aanku baraka leeyahay waalidkay wuu dhegaysan lahaa wuu akhriyi lahaa wuuna baran lahaa aabbahay qur'aan ma yaqaano ma akhriyo ma dhegaysto anna wuxuu igu qasbayaa dugsiga inaan aado wuxuu igu qasbayaa inaan akhriyo wuxuu igu qasbayaa inaan xaafid noqdo isaguna ma yaqaan waa qodob ku xiga qodobadan ka hadlaynay oo ah korriinka ilmaha iyo qodobada muhiimka ah waalidiintu inay ogaadaan qodobkan waxaa la yidhaahdaa adigu tusaale noqo sida aad ka rabto inay u dhaqmaan adigu u dhaqan qodobkaasaan maanta ka hadlaynaa waa mar kale iyo janaalkii lagugu talagalay waalid ee la oran jiray waalid legacy fadlan subscribe dheh walaalaha muslimiinta ana la sheer garay insha Allah taala bismillaah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ba'd u fiirso qaabkay daayirtu u fikiraan caruurtu qaabkay u fikiraan u fiirso inta badan hadalkaaga waxa uga muhiimsan ficilkaaga waxa aad u sheegayso waxa uga saameyn badan waxa aad ku dhaqmayso waxa laga yaabaa inagu inaynu u haysano waalidow ilmahani in uu yahay ilmo caqli yar waxba aan ogeyn laakiin mararka qaarkood taktiiga ay la imanayaan iyo say kula socdaan iyo siday kaaga daba imanayaan runtii tatacajab aad la yaabaysaa ilmahan waalidkiiba wuxuu ku qasbayaa aabbaha uu ku garaacaya dugsiga inuu aado guriga inuu qur-aanka ku akhriyo in uu xifdiyo wuxuu ogaaday aabihii tabad ma akhriyi karo ma soo baran qur-aan ma raba inuu barto qof weyn oo hadda aanan qur-aanku muhiim u ahayn inuu akhriyo isu arkaa inuu ka weynaaday barashada qur-aanku isu arkaa guriga markuu joogo isboortiguu daawanayaa newskuu daawanayaa kitaabka qur-aanka malaha maalinka tacsi xaafadda ay ka dhacdo iyo shelfiga ka soo saaraa busta ka masaxa ilmahani waxa way arkayaan wuxuu rabaa maalin walba inuu yidhahdo akhri kitaabka wariya qaada kitaabkaaga xaggee dhigtay waa kalaamu rabbilcaalamiin dugsiga aad maya ma soconayso waalid ma soconayso waxaan qodobkan uga jeedaa marka ilmaha waxa aad la rabto adigu marka hore ku dhaqan ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wa camila saalix waxaad ugu yeeraysa qofka waa in adiga marka hore lagaa helo sidoo kale ilahay wuxuu yidhi lima taquuluuna maa laa tafcaluuna waxaydan samaynayn maxaad dadka ugu sheegaysaa adigu waa inaad tusaale u noqoto waayo saan sheegay ficilkaaga iyo waxaad samaynayso ayaa uga saamayn badan waxaad u sheegayso maalinka bisha ramadaan taraawiixda haddaad isku garab tukanaysaan oo arkaya adoo khushuuc ku dhex jira ama iska keenaya oohin iska keenaya ooyaya salaada ku dadaalaya qur-aanka akhrisanaya gacmaha kor u taagaya ilmaha ku garab fadhiya ilaahayo ilmaha ii hagaaji dhahayo maqashiinaya waxaasoo dhan saamayn fog bay ku yeelan oo ka daran in adigoon waxa ku dhex jiran waxa aad samee aad tiraahdo dugsi qur-aankaad kusoo tuuraysaa dubnad baad ku ciyaaraysaa meesha barnaamij youthkaa jiraad leedahay masaajidka orod fadhiiso maqaaxidaad shahla fadhiisanaysaa ilmahan wuu arkayaa markay dugsiga ka soo baxaan ay maqaaxiya wax ka soo gadanayaan aabbo qoslaya ama dubnad ciyaaraya ama laadhuu ciyaaraya arkayaan bax waryaa ku noqo muxaadaradii baa socod bax waryaa ku noqo adduunku saa uma shaqeeyo waxaan rabaa waalid inaan idhaahdo runtii walaalo fara badan oo culimo ah oo markay guriga ku tukanayaan carruurtoodu ay la tukato baa waxay noo sheegeen waxay yidhaahdeen waalidkayaa nagu tarbiyeeyey waxay nagu yidhaahdeen culimmadaasi markaan dhahnay sababta keentay inaad carruurtiina guriga kula tukataan maalmo dhan sitimaankii 2 jeer bay la tukanayaan guriga waxay yidhahdeen waalidkayaa saa samayn jira u fiirso ilmahan wuxuu ku soo koray guri waalidkii uu odhan jiray kaalaya maqribka aan wada tukanno uu isagu tujinayo ama wiilka weyn uu leeyahayna tuji faamiligu inay ku daba tukanayaan way la koreen saameyntaasaa qaaday way saamaysay way ku ta'athureen iyagii markay weynaadeen saamayntii ficilkii waalidkood ayay weli wataan markaasay iyaguna carruurtood u yeedhayaan kaalaya tukaneen u fiirsa marka haddii waalid jimco walba ama khamiis walba maqribka iyo cishaha ama weekendyada marka qaarkood aad joogtayso guriga in lagu tukado idinkoo is arkaya tasbiixda taxliisha taxmiidda takbiirta la sameeyo ka yar aad tiraahdo ducee dhaqanka caynkaasi markaad ku koriso ay arkaan way samaynayaan waalid waxaan rabaa inaad ogaato ilmahan waxaad ka fikirtaa qof baa sugaya waalid inuu u noqdo aabbe u noqdo u fiir mas-uuliyadda ku saaran marka wiilkaagan carruur baa sugaysa mustaqbalka insha allah la rabo inuu koriyo uu tusaale u noqdo uu aabbe u noqdo oo fitanka hadda adigu maanta aad wajahayso mid ka daran uu sugayo ilaan fitanku way sii badanayaan gabadhaada carruur baa sugaysa hooye inay u noqoto oo tusaale u noqoto wiilkaaga gabadh baa sugaysa oday inuu u noqdo oo khayrka ku hogaamiya gabadhaadana oday baa sugaya la raba inay u noqoto hooyo khayr badan zawjo saalixa carruurtana korisa xaajigeedana si fiican ku wada joogaan mas-uuliyaddaasoo dhan magacaaga maskaxdaada markay fuusho waxaa qalbigaaga ku yaraanaya inaad runtii turub meelaha ku ciyaarto dubnad ku ciyaarto wakhtiga meel kala geyso li'anna mas-uuliyadda ku sugaysaa badan fitankuna way sii badanayaan waxaan rabaa inaan idhaahdo marka carruurta lagu yidhi hadda ka hor aan idiin sheegay haddaad waalidkiin hal shay ka bedeli lahaydeen maxaad ka bedeli lahaydeen waxay yidhahdeen we wish our parents were not stressed when they come home waxaan noogu daran bay dheen waalidku markay guriga yimaadaan way isku buuqsan yihiin ama way daalan yihiin maanta dhan baad banaanka ka soo sheekaynaysay energy ma haysid carruurta inaad kula sheekayso waa in markaad tusaale noqoto markaad soo gasho guriga qalbigaagu waa inuu ku jiro qaabkan carruurteeda ula dhaqmayaan u mucaanaqaynin hagta u siinayan ula sheekaysanan waqtiga u siinayo waxaan
waxaan rabaa iyaguna sidaasi lamida inay caruurtooda mustaqbalka ula dhaqmaan qodobkan maanta aan ka hadlayno waalid marka waxa weeyaan tusaale fiican noqo adigu si ay kugu daydaan ogow mas-uuliyadda hadda aad ku beerayso iyo jidka aad u jeexayso iyo qudwada aad rabtid aad u noqoto ayay ku dabaqi doonaan kuwa awowga aad u tahay beri sugaya qodobkaas weeye marka tusaale fiican waalid adigu noqo ilaahay subxaana wa tacaala awlaadinaga hayna xifdiyo fadlan waalid channel muuqaaladiisa subscribe dhaha walaalaha muslimiinta nala sheer gareeya wassalaamu calaykum